maansada magaceeda waxaa la yiraahdaa utumo waxay soo baxday waan sameeyay 2009 bishii 27 waxay ka hadlaysana kulli ka hor dhacmayo de waxaan malaynayaa uma baahna tafaafiilada in laga bixiyo ayadoon baa isfasiraysa afar beerka ololiyo anfac diiday iyo muuq Itaaliya hoggaan saxa orod iyo isweydiin balaalbaabka loo xiray eega maansada aakhira walaal ma leh oo ina adeer ma leh eedo iyo abkow ma leh ehel iyo xigaal ma leh aabbo iyo arwaax ma leh abti iyo macaan ma leh abtirsiinyo guud ma leh waa meel aboor iyo abrisu dhex joogo ninkii aan ilaah bixin inkaar waa ku sugan yahay iyo ololka naareed marna waa udgoon iyo ubax weeye doogo anfac weeye sabiyo ehel iyo macaan loo raaxa loo ileeyo ayhiisu waa guul labada albaabe ee bahay uu simaye midba aragti leeyahay aqligii saliimhi waa og yahay jidkiisii misna diidnay ehelow annagoo og taasoo indhaheenu furan yihiin inaan tii ilaahay noo sheegay aadno xaqa loo adeego waajibkii la oofiyo waxaan eegahaynaa loo aloostumayaa dadku badi ku aadeen iyo qabiil iyo anfariir dagaal iyo umul iyo rasaas badan samaantii la awdiyo afka dhagaxa laga saar anshixiina loo diid abur lagu awaaree irdihii la wada xiray awlaadii samaan ma leh ardigeenni roob ma leh nabad iyo istaag ma leh abaar la isku wada kici diintii laga awaaree xaajada udgoon ma leh ilaahuna sama bix inkastoo inkaariya eedaadka uu dhacay weli iilku sii qodan lama helin iftiinkii abriskiina lama dilin anficiina lama helin dadku badi is-eedee iilka la isku wada jeex orka la isku wada qaad anfac la isku wada diid eex la isku wada xukun alaalaaski beenow uurka la iska wada jeex afka la isku wada xiray uubatiyo col soo baxe qarax la isu wada aas aaminaadna laga gudub eelkiina sii baday misna aamus lama oran Soomaaliya albaabkii laga goo irsaaqdii loo aqoonsay duuljina inkaar iyo habaar qaba alqaacida ku badan tahay ilayskiina laga jaray allow yaab ku badana ama kaagu dheera askarteenu liitee islaam fuulna badana amni jilicsan badana naf itaal badana ibtilooyin badana ilaahayna sama bixi dhalinyaradii aafiyo lagu tuurin kaarbaas ka ambada dalkoodii ardigaala sii tage irsaaq iyo naf lama helin anficii la soo waa arligiina laga guur wax kaloo indhaha riday aqoon uu ragwaa hore u samaystay ehelkood arli ay dhisteen iyo udugi iyo beeraha maxaa adiga kaa galay ingiriis miyaa tahay afartaa ayaamaha erey iyo halmaamuus onkada korobka diin weli ama aar xanaa qaba uunka dirir la wada galay ifafaalihiisii kala daran ayaamuhu nin waliba itaalkiis orod iyo waxqabadkiis eega hanaankii islaamka iyo la dhaqankiis haddii arama tahay iyo uurka ciil ka shidan yahay aafo la isku wada xulay ardigiina qiiq yahay intifaacu liitee waxba yaanan aayaha hadba odayar weydiin nin ibtila u taalo afka dhiig ku cunayo aqligiisu yahay kayn aayahayga weydiin anna yaanan sidii inan aroos loo galbinayo oraahdiina laga xiray aamus badan ku sii jirin asna cunin xaqaygii hal kaloo inkaariyo aafa iyo layaab mudan aan sheego ehelow aan awadiyo maansada aan u jeexo irid kale Soomaaliya markii orod oon iyo dagaal dhacay afka la isku wada riday ololkii samada galay gobol la kala aad markii ay ayaan dheer kala orod reeruhu Ismaaciil u wada yeer badi loo awaaree durbaaniyo loo tumay carta eegta laga shiday
bila laysku wadaarag ari badanna lagu qoray udub iyo dhis loo gudub abtirsiinye soo baxe Soomaaliya la kala ood afar iyo bar laga yeel maandeeq arwaaxdii uurka hoose laga jeex adimada la kala guray afartii tunweynuhu intii sare ku kala baxe barkiibaa itaal gabay uuskiibaa u soo haray samir bay aruursheen inkaar iyo cuquba dhige waxay erey dhahayeen aqbal eebbahay noqoy ayaamihii la soo yaac xamar la isku wadaarag niman aafo qaba iyo odayaal u soo baxe dowladdii la kala eri mar labaad awaaraha Kenya loo alooltumay in bagaasi loo orod misna eex la wada dhaxal sidii si adkaayay xumihii ololkiina sii qarax aqbalkii mar kala socay xamar loo awaaree Etoobiyaan la soo dhiib maxaakiim itaalkood aan fariirtay sheekadu xaalku arami sii gaar oo dal isku wada jiid mooryaan afxiran iyo al-shabaabna soo baxe kulay waxaan filayaa